xafladan ku sugan madashan qiimaha badan leh waxaan ku saleymayaa magaciisa iyo mansabku ku fadhiyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. salaan kadib walaalkay cabdishakuur waan saxayaa jaamacadda Hargeysa ma ahayn hooyadii jaamacadaha Soomaaliland marka laga eegayo jaamacadda Hargeysa gobolka Maroodi Jeex haddii laga eegayo ayay u noqonaysaa jaamacadda asaaska u ahayd laakiin jaamacaddii jaamacad ahaan inoogu horreysay waa cad ayay noqonaysaa jaamacadda Hargeysana jaamacaddii labaad bay intaa sixitaankaa kadib su-aal baa kolley qof waliba isweydiinayaa waxaa la isweydiinayaa war jaamacaad tiro badan baa waddanka hore uga jiray miyaynu jaamacado kale u baahannahay in tirada lagu sii kordhiyo qof kastoo idinka mid inay taasi ka dhex guuxayso ayaa laga yaabaa jawaabtu waa haa waynu u baahannahay laakiin waxaynu ugu baahannahay in la qiimeeyo markay cidi soo dalbato jaamacad komishanka tacliinta sare ee Somaliland iyo hay'adaha kale ee khusayso goobaha inaga bannaan in la yidhaahdo jaamacaddu waxaanu u baahannahay takhasuska nooca iyo nooca bixinaysa si aynu isu maajgarayno productionka soo baxaya ama ardayda soo baxaysa iyo suuqa baahida looga baahan yahay salaani marka sanadkan horaantiisii bishii March 8 jaamacad baa xadhiga laga jaray la yiraahdo Hanun University oo laba doctor qiimo badan Dr. Yacquub iyo Dr. Abdul Fattah ay fureen waxay yiraahdeen anagu waxaan focus ka saaraynaa sociology, psychology, anthropology area husheed way focus ka saareen Ahmed Noor iyo Cabdiraxmaan madaxweynaha jaamacadda Cabdiraxmaan Xasan iyo Ahmed Noor runtii markaan kulannay waxyaabahan ka wada hadalay bay ku jirtay area specialized inay focus ka saaraan salahan waxaynu u baahannahay maanta jaamacad vocational ama farsamada gacanta ah bal u fiirsada maanta dhismayaasha Hargeysa ama Somaliland ka socda dhammaantood maalintay finishing gaaraan cidda ka shaqeysa waa Bengali waa Pakistan waa Yemeni waa Suuriyan waa Ethiopian waa Kenyan kolkan maanta aynu fadhino ambassador gudihiisa jibsan ka quruxda badan cidda xidhay Bengali bay ahayd waay maxaa baa la isweydiinayaa su'aal baa taalla innaga mashidaal baa inoo soo baxay oo wadamada khaliijkeenu noqono waa laynoo soo shaqo tegay maya way jawaabtu maynaa noqono shaqaalaheenu aqoonta levelkaa weli ma gaarsiisna bacda waxaynu u baahannahay jaamacaadka cusub ee soo biiraya komishanka tacliinta sare inuu isagu daaragti gareeyo oo halka inaga bannaan u yidhaahdo meesha noocaa iyo noocaa iyo noocaasa ayay baahidu ka jirtaa beerihii baa ka mida xoolihii baa ka mida maxaan ku dhaha geologigii iyo qaybihii macaadintaa ka mida baddii baa ka mida farsamadii gacantaa ka mida ereyooyinkaasoo dhani waa ereyooyin inaga bannaan marka ahaa waxaan u leeyahay baahidaas way bannaan tahay oon leeyahay jaamacad kale waynu u baahannahay cidda cusub ee kusoo biiraysa komishanka tacliinta sare ayay tahay runtii inay hagto halka ay kaga habboon ay tahayna qaadato walaalkay mubaaragaa wuxuu tilmaamay laba nooc oo jaamacaadka waddanka jira inay jiraan labadaa tiim inay mid raacaan tiimkani mubaarak baa si fiican u sharaxay su-aal baa laga yaabaa inaad isweydiisaan oo ahayd qolada hore ee uu tilmaamay sidee u jiraan waa gaar ka jira komishanka tacliinta sare iyo hay-adaha u qaabilsan Somaliland inay jaamacadda si dhab ah u xisaabtamaan taa mubaarak ka sheekeynay mabay timaadeen jaamacadka Somalilandna maanta tiradan may ahaadeen way kala hari lahaayeen inta yara waa ka soo bixi lahayd laakiin gaar ka jira iyo fooga bannaan oo runtii lala xisaabtami waayey ayaa fursadda uu ka warramayay siisay mubaarak labada walaal hortay baa laga tilmaamay Cabdiraxmaan Xasan Nuur iyo Ahmed Nuur Muuse waa laba walaal oo qiimo badan xafladda ay ka tilmaamay inuu caawa dadka ay soo casuumeen sidii u soo ajiibeen baynu ka arkaynaa bulshada qiimaha ay ku leeyihiin
أكاديمية الله أضيفه ولا بل لو كجري أحضر كنت وحملها معلمين في الجامعة دار مصابرتي انترفيو يقول ريال في سيارة وحن مركاهي إنه رنتي قيمه لليه إنه كرتي لليه إنه قيم كيد لليه إنه قامل كرو كسر بحكرو عبد الرحمن ما ناوض الشقي لكن بهذا أكاديمية كتير ساقط عند عرمس مرها اللو أما قيد شروع العمل عبد الرحمن التخصص في سويري ذا سجى ما ناوض الشقي لكن سجى الباقي في والله يايو سومالي دوا أول سوسايتي دتك وهم بيننا ونسكور هنا لبضع أوضي وحن كوكر صون هي جامعة دا يسوكر ديين إنه إيري قادن دونتو كنا قادن دونتو كنتي قيبتي لبضع الموارد الشرحية أحيد تيو إن كنتي الوقت الماء وحن كلا تلين يا سدحة فبضوغ وقوان تيم كاولا لدي وقهروا نفسور ويليا مرلباتك وحن ذكرات تلين يا arday baa idin iman doonta guriga wada socto oo doonta sanada labaad baan roonayna soo bilaawdaan ha u bilaabina arday aad idinku dhisateen oo ku kalsoon tihiin oo base soo bilaabateen arday kale waxay idin badan doonta wada socoto oo kooxo idin oran doonta kulliyad aan kulliyadaha halkan aad ku xusteen ku jirin kulliyadaha naloo furo ha u furina waxay idinka luminayaan yoolkii iyo istiraatiijiyadii qorshihii aad dejisateen yaanu idinka lumin waxaa idiin iman doonaa tiim togdheer ka yimaada ama berbere ka yimaada ama ceergaabo ka yimaada ama ka yimaada bowrama oo branch ha siinina maalinta idiin noqoto inaad furtaan idinku furta cid kale ha siinin maalintaad furaysaana ha noqoto maalin aad awoodeeda idinku leeyihiin ood maamuli kartaan haddaad laakiin bariis ballaanisaan barhkeeda ku jabi kartaan idinkoon gaadhin levelka leeyihi ku talagalay waa qodobka koobaad qodobkaas qodobka labaad xilliga imaka ardayda imanaysaa waa intayga systemkiina intayga aad u qaadanaysaa system stronga ood ardayda ku kala xulataan ha noqdo jaamacadka hargeysa ka jiraya somalilandba way isaqaanaan xogtoodana waa la kala warrayaa waa inuu idiin baxa magaca gruubkii labaad tayo jaamacad macallinka wax ka dhigaana macallin tayeeyahay ardayga soo gelayaana ardaygii saxda ahaa ee u qalmayay uu yahay waa inuu magacaasi idiin baxa haddii aad tiro ku xisaabtantaan oo boydkuu noqdo number arday oo fara badan in lasoo xarayo waa bakhaar iska way jirtaa baa laga leeyahay laakiin taayaanay noqon gabagabo waxaan ku gabagabaynayaa jaamacadda almasanaad diyaar baanu nahay inaan idinla shaqayno waana idin soo dhawaynaynaa waxyaabaha hadda idinka qabyada ah wixii aad uga baahataanna maamul ahaan hadday tahay curriculumka hadday tahay macallimiinta hadday tahay bugaagta intaba waxaanu diyaar u nahay inaanu idinkala shaqayno idinla dhisno idinka dhisno aad baad mahadsantihin asalaamu calaykum